السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kula wadaagayaa qiso aad iyo aad u cajiib ah. waxay ahayd qisadani riyo dhabowday. Rami Shimali wuxuu ahaa fanaan caan ah. Rami Shimali waxay riyadiisu u dhacday sida tan. Aniga saaxiibkay ayaa waxaan ku soo daahnay caways waqti habeen ah. Saacado ka bacdi waxaan soo qaadanay gaari. Waxaan soconnaba wuxuu gaarigu ka daadegtay buunda aad u dheer. isla markiiba gaarigu wuxuu galay khalkhal. أنا waxay soo hormaray albaab aad u madow. Rami Shimali wuxuu ahaa mid markasta ka sheekeeyo riyadii soo martay iyo kuleylkay lahayd. wuxuu ahaa fanaan la tababaro muddo aad iyo aad u badanna ku jiray fanka. Rami riyadiisa waxba lagama soo qaadi jirin markasta uu dadka uga sheekeeyo, waxayna asxaabtiisu ay ku boorin jireen in ay tahay khiyaali, waxna aysan iska beddelin noloshiisa, weligiisna uu noolaan doono. Rami markastoo la keeno maslaxa lagu tababarayo fanaaniinta wuxuu soo xasuusan jiray riyaduu soo maray, wuxuuna muujin jiray murugo. waqtigu wuu degdegayaa, saacaduna way ordaysaa. waxaa maalinba maalinta ka dambaysa loo sii dhowaanayaa waqtigii riyadiisu ay dhaboobi lahayd. Rami Shimali Rami Shimali wuxuu maalin maalmaha ka mid ah u soo safray Masar si uu ula kulmo saaxiibkiisa oo aad iyo aad u jeclaa. xiriir aad u weyn oo dhexdooda yaalay. Rami Shimali wuxuu safarkiisii ku nabad yimi dalka Masar, gaar ahaan Qaahiro. Rami Shimali wuxuu u yimi saaxiibkiis, waxayna wada galeen sidii caadada u ahayd fadhiyo iyagoo u gaar ah. waxay habeenada ka mid ah ku soo daaheen caways. isaga iyo saaxiibkiis waxay soo qaateen gaari iyagoo ku soo wajahan gurigii ay u hooyaan lahaayeen habeenkaas. Rami Shimali iyo saaxiibkiis nasiib xumo intayna soo gaadhin xaafadda, iyagoo ka daadeganaya buundada 6 October ee ku taala Masar, Qaahira, ayaa waxay la kulmeen shil degdeg ah kaasoo sababay in ay labadoodiiba ku naf waayaan. riyadiina way rumowday, halkaas ayuuna ku dhintay Rami Shimali.